Somaliland ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inay keenayso qalabka shaybaarka laabka ee lagu baaro xanuunka COVID-19 sidaasi waxa warbaahinta uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. Si dhaqsayn hadda inoogu imanayaan mishiinka loo yaqaan PCR oo ah kan lagu baaro xanuunkan oo dadkii inoogu shaqayn lahaana Kenya lagu soo tababaray isagana 2-3 cashay soo socdaan ayuu maxaan ku raadayay in soo gaadhayaan innaka lafteenu hadda muddadii aynu hawlahan gacanta ku haynay waxa jira inay aad iyo aad u adag tahay dadkeena inay kala tagaan inay aad iyo aad u adag tahay inay dadka awaamiirtii qaataan inay aad iyo aad u adag tahay in meelihii la yidhi hal la xidho aan la xidhaynin kow marka ugu horeysa garoomada yaryar gaarka loo leeyahay hadda wargelin mayna in la xidho horaa loo xidhay hadda waxaa la soo qabanayaa mulkiilayaasha waxaa jiray 2 mas-uul oo midna uu yahay meeyarka magaalada Gabiley midna uu yahay afhayeenka madaxtooyada oo iyagu dawladda ka yimid dalkan Ingiriiska ka yimid labada mas'uul waxa la mariyay muddadii 14 maalmood ahayd karantiinka ahaa markay ka soo baxeen caafimaad ahaan way isbaareen xaaladoodu imika waa caadi ay ku shaqayn karayaan waxa hadda imika guddidu gacanta ku haysaa oo sida ugu dhaqso badan oo aan babaxaya hawlwadeenno loogu talagalay in ay maraan oo wacyigelinta dadka ay gaarsiiyaan dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka reer Somaliland waxa soo baxaya meelaha qaarkood inaan idaacadu wada gaadhin dadkeenuna magaalo kuma wada noolaan dadka miyiga joogaana uma laha maxaan ku raadayay awood ay TV-yada wacyigelinta laga sii deynayo ay ka dhageystaan sida laashligeed waxa la go'aamiyay inay lagama maarmaan tahay in dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka tuulooyinka dhulka baadiyaha in gaadiid lagu wada maro oo dadka wacyigelintooda la gaarsiiyo waxa howlgalaya 260 gaari iyo 186 qof howlwadeen oo isugu jira wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka dhanka kalena waxa isna halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Shire Saylici sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo diyaar garowga xanuunka coronavirus ee Somaliland intii cisho u dambeysay hawlahan ku jirnay guud ahaan dalka horta waa nabad xaaladdiisa guudna waa nabad weeyaan ilaa haddana si aad ogtihiin la socotaan caafimaadka dalkuna maaragtay waa aad buu wanaagsan yahay labadii qof ee hore lagu sheegay mooyaane wax kale ka soo kordho kale weli ma jiraan waxaan maanta halkan idiin soo gudbinaynaa in xaaladdu ama aad la socotaan caalamka aafadani aad u dhibaato adag tahay xanuun aad u fidaya oo faraha laga gubtay oo dawladihii hore maray ee dhaqaalaha iyo maaragtay infrastructure caafimaadka u diyaarka ahaa haddana ay xakameyn kari laayihiin ilaahay naguma keenee iyadoo fididii weli yar tahay guud ahaan Afrika gaar ahaan geeska Afrika ama Afrikada bari fidistu weli aad u yar tahay haddana maanta wuu inala joogaayo dalkii jaarkeenna iyo innagaba qudheeda oo calaamad doorisa aynu laga helay way inala joogaa marka waxaan maanta ummadda reer Somaliland ugu baaqaynaa in marka hore aynu meel iska dhigno kala duwanaanshaheena Idruus Maxamed Caynaan Goobjoog Hargeysa.